daafurka barnaamijka dib-u-dhiska madxafka qaranka oo ahayd goob lagu kaydiyo taariikhda agabka iyo hidaha ee dhaqanka dalkeena ayaa waxaa maanta dhagax dhigay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. wasiirada maaliyadda boostada iyo isgaarsiinta qaranka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadan lagu dhagax dhigayo oo gudoomiyaha gobolka banaadir si kooban uga hadlay. waxaan halkan u joogna waxay tahay barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo dhaqangalkiisii oo runtii shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan aad iyo aad u soo dhaweeyay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa isla markaana ay hore u arkeen golihii murtida madadaalada dhagax dhigtay sida looga wada qayb qaatay bulshada oo dhanna kaalintooda uga qaateen. halkan waa madxafkii qaranka oo taariikh weyn u leh ummadda Soomaaliyeed inaa maanta noo dhagax dhigto isla markaana si isxilqaannimada bulshada ay ku samaysatana waa taariikh kale. wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Canshuur ayaa sheegay in xaruntan lagu dhisayo ololaha isxilqaan ay qaadan doonto muddo 6 bilood ah. mudan madaxweyne maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu taaganahay munaasabadii dhagax dhigga madxafka qaranka madxafkaas oo muddo 30 sano ku dhawaad ah burbursanaa. mudan madaxweyne madxafkan waxaa la dhisay 1987 nasiib daro annaga gacmaheena ku burburinay. madxafkan waxaa yiilay agab taariikheed ku dhow 4000 oo agab taariikheed ayaa yiilay halkan. waxaa nasiib wanaag ah mudan madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda Soomaaliyeed dal dib ugu dhistaan ayagoo muwaadin kasta uu ku darsanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba quba intuu tabarahayo. waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha Juun 2019 in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jari doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyay agabkiisii loo soo dhameystiray. madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo la hadlay dadweynihii ka qayb qaadanaya ololahan isla markaana ka qayb galaya munaasabadan dhagax dhigga waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay shacabka Soomaaliyeed u leedahay dib u dhisidda dalkooda oo uu xusay in qorshaha dawladdu ay ka mid tahay dhismaha xarumo iyo wadooyin dalkan uu lahaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dib u dhiska dalkiisa. yaa dhisaya yaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso. ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye, ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye, ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan u burbursan yahay, mise annagaas ku tashana annagaas xilqaana. fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweydna aan u bilownay shaqada tiyaatarka. haddana hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga hadduu eeba yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dawladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuulo hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno. sidaas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno hadduu Ilaahay yiraahdo. dagaaladii Soomaaliya ka dhacay horaantii 90-meedii waxa ay sabab u noqdeen in madxafka qaranka uu noqdo goob maran oo aysan jirin raad laga hayo agabkii yaalay marka laga reebo magaca dhismaha xaruntan. Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.